walaalow idaacadii baa toos ugu jirta. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله محمد علي أنا وهل كلمة ما ربنا عنده haya kelmadaada ku soco. كلمة الوعوية ليش الدجودي واحد دكتور منديرا واحد دكتور واتشير وحكى عبارة عن الصومالية ولي ما مغل أما حلبان قوضه أمدي باي معرك أما الصومالية كتر دول المعرك أما الصومالية وصلها هي المعرك قبيلة مرلي حتى وقبيل ودقة كينيا وتوران بدقة قرر دقة maxaa heerkan ogaadeen la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed ku diray intaasaan u leeyahay intaas baan u leeyahay arrinkaasi dad badan baa kaaga jawaabay waa su'aal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيمة بدن كدب وولالكين محمد إبراهيم عمر ومرلبات ربا إنو كهدلو نين بريهان دنبع عاديستي إن بيل كامدة بيلاها الصوماليات ومرول بدبر دكتو ودهو وحي أشقيان قميست وحي كسور جيدان أمد الصوماليات دقن كينيا نين كاسو اللي يراهدو محمد علي wuxuuna ku soo galaa Facebook difaaca qaran video horaan kaga soo hadlay waxyaalo qaarkood uu ka hadlay laakiin video kale caawa uu duubay oo uu kaga hadlayay haddana the same issue oo uu leeyahay beesha degta Puntland oo la garanayo cid walba garanaysa cid Puntland degta ayaa ka cararaya ama ka qaxaya dalka Kenya si uu dhigay xitaa waa la yaab way lugeeyeen way qaxeen busiya iyo meelo kale ay aadeen buu leeyahay wuxuu create gareenayaa ama abuurayaa xasilooni darri inay ka jirto dalka Kenya maanta waxaa ka hadlayay ninka laga soo doorto xaafadda Islii ee Kamakunji Yusuf Xasan oo sheegayay in dad far badan oo qurbaha jooga ay maalin walba la fadhiyaan social media in Kenya aysan deganayn oo uu barbar dhigay marka magaalooyin waaweyn oo ka mid ah kuwa adduunka ugu waaweyn iyo dhibaatooyinka ka dhaca iyo xasilooni darrada ka dhacda wuxuu soo qaatay South Africa oo dad lagu laayo wuxuu soo qaatay Kenya Canada oo dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilo dhowr case baa ka dhacay Kenya oo nabadgelyo darro ah uuna ka hadlay waana lagu daba jiraa buu yiri xildhibaanka meesha laga soo doortay laakiin waxaad moodaa in barnaamij kale oo coordinator ah uu jiro oo lagu xumeynayo dadka Kenya degan la rabana in loo tuso Soomaalida kale in hal beel oo degta Kenya ay ka soo horjeedo beelaha kale ee Soomaaliyeed it looks like wax coordinator ah annagu markaan fiirino ama aan analyze garayno waxay noola ekaanaysaa wax laga shaqeynayo oo coordinator oo la rabo ummadda Soomaaliyeed in madaxa la isu geliyo sababtaas way sababta keentay inaan ka hadalno oon soo jeedino in waxyaalaha noocaas oo kala ah ay tahay hate crime maalin dhaweydna ka dhawaajiyay waa hate crime haddii aad qabiil gooniya aad magacowdo oo aad dhahdo qabiilkaas qabiilada kale ka soo horjeeda waa hate crime ama garo ama ha garanin laakiin waa lagu garansiino maalinka dambe way kugu imaan doontaa in intii lagu qabsado lagu dhaho waxaad create garaysay qabaa'il Soomaaliyeed inaad kiciso oo qabaa'il kale aad ka horgeyso we have no problem anaga saan sheegnay haddaad Daahir Cali soo caaydo haddaad Axmed Rashiid caaydo haddaad cid kale caaydo Maxamed Caliyow we have no problem laakiin in aad daba dhigato hal beel oo Kenya degan oo magaceeda aad soo qaado dhowr jeer interviewgaaga oo dadka aad la yeelanaysay aadna ku tilmaanto in gumaysi kalkaal iyo gumaysi la shaqaysi ay yihiin waa wax aad looga xumaado weeye tii horena waan ku iri cajaladii horena waan kugu sheegay waxaan ku iri apology ka bixi laakiin nin hadda u jeedo inuu apology ka bixiyo oo howlahaas uu ka garaabo uma ekid waad fahamtay soo ma marka Soomaaliyay barnaamij baa socda lagu caayayo ama lagu fool xumeynayo beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ninkaasna uu afkiisa ku soo celceliyay marka videogiisa la dhageysta aragka horta ninkan wuxuu ka sheekeynayo iyo sida uu rabo inuu Soomaalida isaga horgeeyo ila fiiriyo videogan ila fiiriyo soo dhawaada maanta waa maalin aad iyo aad u nasiib daran maanta waxaan filayna ma dhicin jaaliyadda
maamul goboleedka puntland ee ku dhaqan magaalada nairobi oo ka firxaday nairobi lugna ku gaaray deegaanada busia nakuru iyo xadka dalka uganda uu la leeyahay kenya dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada nairobi ka carartay ee qaab qabiil ah loo ugaarsanayo kuwaasoo ugaarsanaya ninka la yidhaahdo gacanku dhiigle dambiile arxanlaawe imaanlaawe maxamed rashiid oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dalka kenya oo ka geystay magaalada nairobi dilal arxandarra ah boob dhac kufsi iyo dilal iyo afduubyo aad iyo aad u waaweyn waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed xaaladani waa xaalad uguba wax la qarin kara ma ahan ilaa iyo xalay waxaa nala soo xiriirayay walaalaha reer puntland walaalaha jaaliyadda onalef iyo walaalaha kale soomaaliyeed waxay nagu hayeen maadaama difaac qaran arrinkan hala dejiyo onalef aan ku bilaabayaa onalef waxay nagu yidhaahdeen annaga maxaad ka rabtaan baan ku idhi dadka soomaaliyeed u ugaarsanaysaan oo aad magaalada nairobi ugu dhex ugaarsanaysaan dad soomaaliyeed waxay yidhaahdeen annaguba aabbayaasheen iyo walaalaheen baan raq iyo ruuxayn waa kuwana dhiibay waa kuwa tigrayga naga gatay anigu jawaabta aan siiyey ilaahay baa igu og waxaan ku idhi walaalayaal haddii aad wax idin geysata eryanaydaan oo aad eryanaysaan oo aad ceyrsanaysaan waxaa weeye dadkii idin dhiibay faroole iyo wiilashiisa nairobi ganacsi bay ku leeyihiin waana degan yihiin guryana waa ku leeyihiin kuwaasaa inaad qabsatay ahayd cabdiweli maxamed cali gaas baa guryaha ugu waaweyn kula nairobi inaad qabsatay ahayd inaad qabsataan bay ahayd laakiin dad masaakiin oo qaxooti ah oo kuwiinnii oo kala dhibanayaal ah oo dalkoodii ka soo cararay oo qaarkood waxbarasho u jooga inaad qabsataan ma ahayn xaaraam calayg mid difaac qaran ay oggolaanaysa ma ahan waan hubaa muwaadiniin soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad aragteen videoga ninkan iyo siduu u hadlayo sababta keenaysa inaan ka daba hadalno oon dhahno waxaan waa wax qaldan inaad ummadda saa ola hadasho ama waxa aad hor keentana ma aha sababtaan u leenahay waxaa weeye ninkan dad baa fiirsada subscribers baa loo yahay ilaa 700 kun oo qof baa fiirsata ama ku xiran shabakadiisa uu ka hadlo marka sababtaasaa keenaysa inaan dhahno ama aan toosh ku ifinno dhahno waxyaalahan aad samaynaysa waa waxyaalo qaldan ha ku noqonin ha samaynin ummadda soomaaliyeed ay aragto isaga iyo dadka la midka ah ee qabaa'ilada raba inay madaxa isu geliyaan qabaa'ilada soomaaliyeed ee nabadda u wada degan raba inay madaxa isu geliyaan in laga diido wuxuu dhowr mar soo qaaday ninkan cajaladiisii hadda uu duubay aan ka hadlayno ururka onelef ujeedku uu soo qaadeen wax kale ma aha inuu soomaalida u tuso qabiil onelef inay qabiil tahay oo uu rabo onelef inay u tuso dadka inay ka aarsanayso wixii puntland ay u geysatay onelef some things oo jiro waa taariikhi waana ka xunnahay in hadda ka hor ay dhacday in dad onelef ka mida etoobiyaanka loo gudbiyo waa sheeko taariikhda ku jirta weeye not only in puntland laga gudbiyey waxaa kaloo laga gudbiyey somaliland marka it is something taariikhda ku jiro laakiin ma rabna maanta in qabaa'ilada soomaaliyeed madaxa inta lasu geliyo la dhaho waxa loo sameynayo hadda ka hor baa onelef waxa lagu sameeyey all of this ama waxaan oo dhan waxay dabada ku haysaa in qabaa'ilka soomaaliyeed la kiciyo madaxana lasu geliyo taasna waxaan u malaynayaa in hadda laga koray qabaa'il wax la midaba dhallinyarada soomaaliyeed ee rabta inay soomaaliya mustaqbal ka yeelato ama rabto in laga ixtiraamo soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in abrojka hadda ay wadaan ay bedelaan ama views ku raadso ama lacag ku raadi everything is documented wax walba qofku uu dhaho waxay ku jiraan documentation record bay ku jiraan I wanted inaan remind gareeyo dadka soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed wax duubaysa everything you say today wax walbood maanta dhahdo is recorded way kaa daba imaanaya berri am sorry isaana ahayd iyo kaama saarayso marka waxaa laydinka rabaa markaad hadlaysaan waa idiin sheegay nimanka youtuberada ka hadla in aad u hadashaan si ay mas-uuliyadi ku jirto
ood ixtiraamto ummadda soomaaliyeed iyo say u degan tahay iyo sharafteeda wixii kale ee dhaliila iyadoo asluubaysan baa dadku dhaliili kartaa haddaad kenya eedeynayso waa dowlad waaye waa la eedeyn karaa waa dowlad aan darisnahay soomaaliyana ilaahay baa meeshaa dhigay kenyana ilaahay baa meeshaa dhigay waa waddan aan darisnahay waa waddan hadda daristiina waxa waa la isku qaban waxna waa la isku diidi waxna waa la isku ogolyahay laakiin waxay u baahan tahay si cilmiyeysan in loo radiyo ama loola murmo dadka kenyaanka ah haddaad daawato idaacadaha kenyaanka ah waxay u hadlaan intooda badan si ay ku jirto aqoon ku jirto si aqoon ay ku jirto bay idaacadaha kenya u hadlaan ama ha ku dhacaan oo bad ha kugu qabsadaan ama siyaalo kale danaha kaaga yeeshaan kenya waa waddan dariskeena meeshay degan yihiin marka in dadkii ku dhex noolaa la kiciyo ummaddii la deganeed madaxa laisu geliyo it is wax la yeeli kara maaha marka waa idin salaamayaa soomaaliyey khayr badan baa idin rajeynayaa farxad ku noolaada dadka aad daawanaysaanna damoo qofku wax xun uu ka hadlo oo la daawado damoo uu wixii sii wado marka ummadda waxa xun ka hadlaysa ha daawanina ka jarta janalkiina qabiilna ama qabyaalad meelna ma geynayso waxa meelna geyn kara waa soomaalinimo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu